sidoo kale ishaada iyo maskaxdaadaba waxaad ku train gareyn kartaa website-yada tan soo socda. haddii aad rabto inaad iska dhisto shaybabka iyo qaabka aad u samayn karto, waxaad ku samayn kartaa website-kan. colorska kanaad ku samayn kartaa oo colorska hadaad iska dhisto color theory inaad soo qaadatay, halkan ayaad wax badan ku fahmaysaa. website-kana sidoo kale waxaad ku dhisan kartaa waxa la dhaho pen toolka ayaad si fiican isaga dhisaysaa. website-kana waxaad ku garanaysaa dhisaynada quruxda badan iyo kuwa aan quruxda badnayn. tusaale ahaan aynu eegno website-kan, tusaale ahaan waxaa lagu leeyahay waxaad saxdaa letterkan oo kale. marka maxaad samaynaysaa, wuxuu ku leeyahay halkan drag garay, saana u jiidaysaa, kadibna waxaad keenaysaa meeshaan oo kale. maxaa lagu leeyahay 10/10 ayaa lagu siiyey. tusaale ahaan waxaa lagu siinayaa kuwa kale aad ka shaqayn karto. marka kuwaas waxaa la rabaa inaad ka shaqayso oo aad isku daydo. tusaale ahaan halkan u jiidaysaa, kan halkan u jiidaysaa. hadhow maxaa saxmaya, maxaa fahmaysaa qaabka aad wax ugu dhisan karayn karto. moogtahay photoshopka ayaad fahmaysaa ama applicationada aad isticmaalayso. hadda dhisankan oo kale waxaa la siiyey 62, wax yar baa ka akhridan baa layidhi. okay, qaybta labaad haddaynu u imaadno waa colorska. colorska haddaa kan eegno game baad ku ciyaari kartaa. tusaalehaan hue baa lagu siinayaa. marka huegaasaa la rabaa inaad doorato. tusaalehaan casaankaasaa la siiyey, just maxaan geynayaa cagaarkan, maxaan geynayaa cagaarkan geynayaa. very good baa laysoo qoray. tusaalehaan hue kale iigay, tusaalehaan kan oo kale markaan ku dhufto perfect baa laysoo qoray. guduudkan marka waa inaad garanaysaa moogtahay color wheelkii aynu kusoo shaqaynay. okay, soo ma jeedid ilaa lagu geeyo moogtahay meesha ugu wanaagsan. tusaalehaan waa very good perfect. kadib saturationka ayaad ku tababaranaysaa. saturationkuna muxuu ku siinayaa tababar baad ku qaadanaysaa. okay baa leedahay, press gare, kadibna waxaad fahmaysaa qaabka wuxuu shaqeeyaan. tusaalehaan saturationkaas oo kale, casaankaas oo kale maxaad samaynaysaa, meesha uu kaa jiro waa inaad raadsataa. orange waa cagaar wey moogtahay, waa inaad cagaar ka raadsataa soo ma. waa kan oo kale click markaad dhufto very good. marka waad wadaysaa inta aad ka fahmayso marka qaabka u shaqeeyaan waxaa la dhaho color wheelka iyo waxyaalahaas. haddaynu ku xijino Bezier game. Bezier game-kana waa maxay? pen toolka ayaad moogtahay si fiican ugu fahmaysaa. pen toolkana waxaad fahmaysaa marka aad moogtahay kusoo shaqayso photoshopka ama illustratorka meelahaas oo kale aad kusoo barato, waa inaad halka ku practical garaysaa. si qurux badan baad u samaynaysaa moogtahay. waa lagu sheegayaa, kadib waxaa lagu siinayaa moogtahay kuwa aad ku tababaran karto. tutorialka ka bood baa lagu leeyahay. kan oo kale waad ku tababaranaysaa, si toos baad u keenaysaa. website-kana wuxuu ku siinayaa moogtahay design saxsan iyo design khariban. tusaale ahaan marka colorka aad ka eegtid, markii aad farta adeegsanayaan ka eegtid, waxaad ogaanaysaa moogtahay ishaada markaad si ugu dhacdo designka khaldan baad ogaanaysaa. hadda designkan waxaa la adeegsaday intaasoo color baa la adeegsaday, labada tan ma fiicna, waxa la dhaho contrastigoodu labada tan iskuma wanaagsana. marka already kana xun, waxaa lagu yiri select grade designka quruxda badan. marka waad dooranaysaa just maxaa arkaysaa perfect baa lagu leeyahay. designkan compare gare, marka hore qaabkaas ahaa, hadeerna qaabkaas noqday. marka waxaad fahmaysaa designka iyo designka quruxda badan iyo waxay ku kala wanaagsan yihiin. markaad dhowr mar ku celceliso waxbaad fahmaysaa. marka waa inaad ku practical garaysaa, ishaaduna waa la qabsanaysaa. marka intaasoo website baa jira aad ku samayn karto practical, ishaaduna ay kula qabsan karto. marka intaasaan kusoo koobaynaa guuleysta.